kulanti wacan saaxiibayaal idil ahaantiinba meel kastoo nagala socotaan halkani waa Camuud TV aniguna waa Yaanla Cabdiraxmaan kuna soo dhawaada wararkii aan idinka haynay caalamka qodobada ugu doorka roona waxaa ka mid ah Ruushka oo la sheegay inuu dilay wariye reer Mareykan ah Sacuudiga oo isna dil wadareedkii ugu badnaa abid ku fuliyay tiro maxaabiis ah Iran oo iyana la sheegay in ay daandaansi ku wado dalka Mareykanka aan ku bilaabay wasiirka maaliyadda ee Ruushka ayaa sheegay in ay cunaqabataynta reer galbeedku ay sababtay in ay kala badh kaydka dahabka iyo lacagaha qalaad ee dalkiisa la xayiro Masar ayaa iyana ku dhawaaqday in ay heli doonto shixnad qamandi ah oo ka imanaysa dalka Ukraine iyo sidoo kale dalka Ruushka maamulka Ukraine ayaa sheegay in ay wariye Mareykan ah dileen ciidamada Ruushka waxayna duqeymo Ruushka ka geysteen howlka ciidamada Ukraine oo ku yaala meel ku dhow xadka Poland wasiirka difaaca Ukraine Oleksiy ayaa sheegay in ay Ruushku duqeeyeen saldhig military oo ay macallimiin ajnabi ah ka howlgalaan saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ay 8 gantaal ku garaaceen xarunta caalamiga ah ee nabad ilaalinta oo 10 kiiloomitir u jirta xuduudka Poland saraakiisha ammaanka dalka Ciraaq ayaa sheegay in ay 12 gantaal oo nooca balastiga ah lagu garaacay magaalada waqooyiga dalkaas Ciraaq gantaaladan ayaa ku dhacay agagaarka safaaradda Mareykanka ee ku taal Ciraaq saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in aysan wax dhibaato ah aysan gaarin dhismaha safaaradda saraakiisha Mareykanka ayaana sheegay in weerarku ka yimid dhinaca dalkaasi Iran ayaa iyana beenisay in ay waqti u qabatay wareegga cusub ee wadahadallada ay la yeelanayso Sacuudi Carabiya saacado kadib markii ay soo baxeen warar saxaafadeed oo sheegaya in ay Tehran ay go'aansatay in ay hakiso wadahadalka Riyadh dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ku tilmaamay weerarka 12 gantaal ee ku dhacay agagaarka safaaradda Mareykanka in ay tahay daandaansi ay wada Iran kuna wada dalkaasi Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq ayaa sheegay in ay Baghdad marti gelin doonto wareegga shanaad ee wadahadallada Arbacada soo socota wararka ku saabsan hakinta wadaxaajoodka ayaa soo baxay maalin kadib markii ay Riyadh ku dhawaaqday in la toogto 81 maxbuus oo ay sheegeen in ay ka mid ahaayeen argagixisada kuwaasi oo ay ku jireen 10 xubnood oo ka tirsan madhabta Shiicada sida ay sheegeen Sacuudi Carabiya ayaa xukun daldalaad ah ku fulisay 81 qof oo lagu helay dambiyo isugu jira dil iyo in ay ka tirsan yihiin kooxaha mintidiinta taasi oo noqotay dil wadareedkii ugu ballaarnaa abid ee lagu fuliyo tiro maxaabiis ah tirada dadka la dilay ayaa xataa sare martay tiradii dil wadareedkii bishii Janaayo 1980 lagu fuliyay 63 qof oo dagaalyahano oo markaasi lagu helay in ay qabsadeen masjidka xaramka ee Maka 1979 weerarkaas oo ahaa kii ugu xumaa abid ee lagu bartilmaameedsado boqortooyada iyo sidoo kale buqcadda barakaysan ee xaramka waatay saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyay caalamka inta aan warkan mid lamid ah ku kulmayna waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo